maamulka dawladda hoose degmada Gabiley ayaa saaka waxay booqdeen sariimada xaafada Laagbar oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday dib u dhis iyo casriyeyn lagu sameeyay mid ka mid ah haweenka ku ganacsada sariimadaasi ayaa waxay golaha deegaanka waqtigan iyo maamulka ku amaantay horumarka ay ka fulinayso sariimadaasi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناسكين معي هدادينا دمانتي وناسيح الله ينسيه ريانا قعوني شري على روكا نقدي شري ونسكت باقي الحمد لله ونقدم ندعينا النورات المسلمين خير الله ينسيه. ay sidoo kale booqdeen wada afar hada oo dhismaheegu socdo wadadani ayaa ah mid nooceedu ku cusub yahay gobolka iyada oo wadata solar systemkii iftiiminayay waxa uu maamulku ka dhawaajiyay inaan jirin cid ka gacan siisay isla markaasina ka caawisay balse ay ku dhiseen cashuurihii ay ka soo ururiyeen bulshada. maayarka magaalada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi xogayaha fulinta dawladda hoose Mustafa Xaaji Cabsiye iyo maayar ku xigeenka degmada Gabiley Cabdi Yuusuf Goole ayaa waxay bulshada kula dardaarmeen inay ilaaliyaan isla markaasina xil iska saaraan wadadani waxana yiraahdeen oo xaafadahan 18 May runtii bilic wanaagsan iyo qurux aad iyo aad ugu soo kordhisay ujeedadu ay tahay golahu uu ka leeyahay in kor loo qaado isu socodka magaalada in kor loo qaado bilicda magaalada oo waxa weeye la xoojiyo runtii isu socodka iyo quruxdaba ay dadkeenu helaan wadooyin wanaagsan oo si fiican oo fudud loo isticmaali karo. waxa sidoo kale aanu ka nimi sariimadii xaafada Laagbar oo ay ka socoto shaqo aad u ballaaran oo dib u habayn iyo ballaadhinba oo runtii si ay indhiina ku arkaseen qaybtii khudaarta la dhisayo qaybtii hilibka la dhisayo dhammaan shaqo weyn laga qabanayo. waxa sidoo kale iyadana ay gacanta lagu hayaa xaruntii degdemiska mashaariicaha waaweyn waxa ka mid yihiin mashaariicaha golaha deegaanka 2018 uu fulinayay iyadoo aynu ku jirno gabagabadii oo ka warqabtaan kuwii horena u soo dhamaystirnay. sharaf bay noo tahay runtii waxa weeye dadaalkaasi iyo waxqabadka waxa xusid mudan waxa mashaariic socday culayska inta leeg leh in dawladda hoose ay ka dhisaso hantidii iyo cashuurtii dadweynaha oo aanay wax contribution dadku ay ku leeyihiin aanay jirin cid kale oo deeq ku leeyna aanay jirin ay tahay cashuurtii dadka laga qaaday. ahmiyadda aanu leenahayna waxa weeye ka leenahay dadweynuhu cashuurta inay si fudud u bixiyaan markay arkaan in adeegoogii loogu fulinayo oo dib iyaga loogu soo celinayo. halkan waxa la marin doonaa leer solar oo sidii wadada afarta haadee hore wada iftiinta oo aad iyo aad u qurux badan. ujeedada kale waxa weeye inay business area ay dhulkani noqoto. waxa leer saddex baa rag lagu bartaa ama lagu bartaa shabad ma la degtay jid ma la martay jidiin ma la cuntay. waxaanu leenahay saddexdaa ayaa rag lagu bartaa. muddo ayaa ahayd muddadii aynu soo joognay golaha deegaanka ama maamulkan magaalada Gabiley. waxaan aaminsanahay inaynu maanta goobtan aynu taagnaa tahay goobaha ugu qiimaha badan leh wadadan ee muddooyinka aanu joognay aanu hirgelinay oo ah halbowlaha magaalada Gabiley. Gabiley markii hore waxay ahayd wadada dheer iyo wadada hoos u noqota ma ilahayn meelo kale oo lagu kala baydhbaydo. iminka baski waa ka inoo muuqdo wadadii weynayd bari dhow wadooyinka lagu kala jarjaraya culays badan lagu qaadan maayaana waxay noqonayaan wax yar oo fudud oo sakad saa la isku jiro. maanta waxaynu joognaa wadadii weynayd ee afarta hada oo ay mashaariicaha ay golaha deegaanka iyo dawladda hoose ay fulinayaan ay ka mid tahay oo ah waxqabadadii iyo miisaaniyadii 2008 noogu jirtay. waxaan leeyahay maanta dadweynaha aniga uga faa'iideysanaya cashuurtii aad bixiseen iyo qiimihii ay lahayd wataa idin soo noqotay. marka waxaan leeyahay cashuurta aad bixinasaan meel kale kuma dhacaso ee idinka ayaa idinku soo celinaya. marka dadweynow cashuurta aad bixisaan ka arka wadada laamid ah ee afarta hada ee aan ku qabanay. cashuurtii kale sariimadaha ka qaadnayna waa idinka imika soo arkayo sariimadii bilicda aanu yeelnay wadarkiisan tii dabdamiska waanu wadnaa. waxaasoo dhan waxa ku jirta contribution walaa GPLG walaa dawladda dhexe waa intii cashuurta ee soo gashay. waxaan leeyahay dadweynaha
wadadan ilaashada qiimaha ku baxday waad arkaysaan wadooyinkan iyo horumar waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale waxaana yidhaahdeen ka socda waxa weeyaan amaamirkii golaha deegaanka oo ay fulinayaan guddigii fulinta oo maayirka horkacayo tan iyo qaar fara badan oo kale iyo qaar soo socdaba waa nologa fadhiyaa maayirka iyo guddiga fulinta xogyahooga iyo gudoomiyaha aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa inay makarada wadada afartahaada ay sameeyaan kani maanta waxaynu joognaa waxqabadkii ama hawlihii ka socday ee loogu talagalay in degmada laga wado bil ka horun bay ahayd markii dhagaxa la dhigayay maantana alxamdulilah way dhammaystiran tahay waddadii oo waafiyihi waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa wixii aan ku hamayna golodegan ahaan inuu noo hirgalay oo waddooyinka iyo sariimadaha ay ka mid ahaayeen shacabka reer Gabiley inay wadada ilaashadaan khaasatan dadka hareeraha ka xiga wadada quruxda badan dhameystirka ku dhow ayaa horta aan ku dardaar gelinayaa waliba hareeraha dadka ka xiga waxa ku waajiba inay ilaashadaan wadadaasi oo ay waliba hareerta ka qurxiyaan oo marmar ku waxayaan biyo mareenkeegina ay ilaaliyaan maanta waxa joognaa wado afarhaada oo aan noqonaysa tii labaad ee ay yeelato magaalada Gabiley wadadaasi waxay noqonaysaa wado qiimo leh oo qiimo u leh dadweynaha reer Gabileyna waa inay gartaan inay wadadu qiimo leedahay waayo wadadu waxay soo kordhinaysaa dhaqaale waayo guryaha hareeraha ka xiga wadadaasi waxay noqon doonaan guryo meherad noqda oo maxay ahayd anfacda maxay ahayd bulshada hareeraha ka xigta ee guryaha ku soo jeedana waa inay ilaashadaan wadadaasi iyaga ayaa leh waa maxamed cabdi cumar maxamed wadiin gobolka Gabiley.